horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino dadweynahan hanuunina hasaawina danta u hagnaa war maanta yaa la hasaawaysaan war salaada war maanta raadiyo muqdisho ma war ka soo akhris war anigu hawladii waa bari iyo waqti ahaabaan soo xasuustay yaa ku diray adiga waa islaqaan horaan waxaa loo yiri duur galaashiisa aad doqon maalin mudaa war ma haysiine maanta raadiyo muqdisho war lagama akhrin may wariyeesha gadoodena war miyay dubeen maanta war idinka dumay warka naga dhex gelineen dhageysta kaydkii raadiyo muqdisho oo 60 sano jiray oo ka soo badbaaday jabaadii kala duwanaa oo ka soo badbaaday duqayntii Mareykanka oo ka soo badbaaday dagaalkii Baakistaanka oo ka soo badbaaday tii u dambeysay jabhadii wax ma dhaafto oo balaayooyinkii isbiirsaday ka badbaaday ayaa maanta dab qabsaday markaan daada jiray 15 markaan damac guur la soo kacay ma gubtay war walaagas ma inga doran widaadkeena jiri subhanaka allahumma ya alim ya hakim allimna min hikmika wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada gubiday war wixii maamul goboleedyada ka hor la duubay ma gubtay maanta waxani wadaha markaan waa macaade ma musaafiraaye meel dheer macaadaye usna ma ku jiraa ma gubti laylay unay awalay ku dheerahay miyay gubatay war qodbooyinkii kacaankii barakaysnaa ma gubteen wareysooyinkii nabadii nolol cusbay ma gubteen laftu ka baxday 60 marka hadlana soo nabadii nolol sheegaya wareeda waa xadreyseen ruuxaanna waad qabtaane kaydkaan heble iyo hebel male waxa ku kaydsanay taariikhdii Soomaaliya oo dhan hadda waxna waa gubteen waxna waa laga badbaadiyay wariya abkay abuulunka oo aawka indamboy taariikhdii buugayn horan damanka inga jarta war meesha maanta gubatay ee dabka uu ka kacay waa aeroportka ninkaana kaaraan oo idin leeyahay korkiisa ha qaace duulimaadadii hakada la geliyay muddo kooban shaqaalihiina banaanka lagu celiyay markii dabka la damiyayna shaqadii dib ayay u bilaabatay war ma qarax baa dhacay nimay aanu aadan u shakiyay wadan markii la qabsanayo ama inqilaab ka dhacayo ayaa aeroportka iyo raadiyaha qaranka la qabtaa marka hadda yaa dabka ku wada talaalay hal mar labadaas meelood horaan waxaa loo yiri luuq maro laasiman laamiyasi maaha war sidaas maahine war jiraaba cakaaro iman war dhageysta aniga dhageysta dab yar oo meel yar ka kacay oo markiiba laga hortagay baad ka hadlaysa wadanka Mareykan gobol dhan bastimaan iyo dheeraad ololaya dabka maan ku dhacaa mise waa ka durka war ilmihii tahriibkaadii oo Libiya tagay qaara isgubiyaal yiri usha way ninkaas oo sitee kibirku aafeeyay kuwa ula ka waawaystu ku asaraarayo asbaa waxa adeerkiis ku dhacay wuu ogsoon yahay kalamana waa eegayeen abigu waday intaan iriya goolkeed la jabin joog ma oran weyd war kalaman cidda ka hadashay waa Generaal Maxamed Ibrahim Guber waxaana uu yiraahday kalamaan runta ay sheegaano shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan aeroportka Muqdisho caalami noqday Turkish Airways waa ogeedeen Ethiopia Airways waa ogeedeen Djibouti Airways waad ogeedeen haatana waxa bilaabanaysa Kenya Airways war Somali Airlines xagee ka baxday ku jabana waa habana Mogadisho bana war Somaliland Airways xagee ka tagteen war warka qowdaya naloo qaban waa wiil yar oo tuulo joogo baabuurta islaamada daba qabsada ma arki jirtay gudoomiyihii degmo ee degmadiisa qof lagu dilo ama taliyihii saldhig ee degmadiisa gaari qarxa u maro waa inuu xilka waayaa xabsigana la dhigaa mudane ra'iisul wasaare aad u mahadsantahay shaqo wacan war markii wax dhacaan dawladdu taliyayaasha ayay isku qastaa marka waxaan la yaabanahay hebel bedel hebelkan miyaa amni lagu sugaa weligood ba hadaaleen ilaa taliya la ii magacaabo wadankaas ma degaayo horaan waxaa loo yiri talawaa wareerta tiirna waa jawaa laga bilaabo saacadan waran le waa taliyaha ka hortaga gaadiidka qarxa war anigana taliyaha ka dabataga la ii magacaabo taliya qaraabadan leey war cali siciid fiqi danjiraha Soomaaliya midowga yiri u fadhiya waxa uu yiri ilmaha taariibiyaasha ee ku xiran xabsida Liibiya waxa lagu qiyaasaa tiradooda inay ka badan yihiin 17,000 war maxaa ciidanku waa looga dhigi waay war ya dad laanga hayda Soomaali magalan lahay ma duurka ka moogan dadkii warniyo dagaal beeleedyada gobolada dhexe hadda laga bilaabay yaa dulaalaya yaa ka dambeeya war adeer dilaal iyo malaalba waa carabta diirkeeda imaaraadka miyaa ka dambeeya reer gobolada tawidaadii boqoradaasa meel dadan isku hoob aragan may leeyina war halkan ama dagaal nagu dhaafaya tol beeli way dagaal baan ugu dhaafay waxaan dagaalaheena daawo lagu waay
marka hata may bilaaween dagaal kama darodi yeeri jiran dhowr maalmood ka dambe mayba ka sugay dagaal wiil baa ku dhintay wiilsa kuma dhashay naga daayay walaal ilmaadeer yarow naga daayay bahashu war aroos gaalgacay lagu dhigi aan la yaabay buraanburaan iskugu imaaday markaasaa la yidhi wixii dhigla u kacay waa warey wixii dhigla u kacay xalafadii buraanburkan waxaa lagu soo gebagabeeyey eryaay aa lagu soo gebagabeeyey war ma taqaanidaa nooga dheelin baraamburka ikacay dhiiggaa weeye markaasaa dadkii o dhan dhiigkar ku wada dhacay warnimada gobollada dhexe meelaan ahayn oo wax ka sheegis idinka ogol miyaad weyseen waa u badisaane eebta iyo badani dhagansoyniyow way mutaysadeen magacoota jiro horaan waxaa loo yidhi ninka caabta caadi ka yeesto ciddiisa macisee haayo war doorashadii koonfur galbeed ma dibay u dhacday mise wakhtigeedaa la qabanayaa way nugu daahday ayan dirsutay meeligoo jir warya war koonfur galbeed ninkii talada u go'aamin jira hadduu meeshii ka wareegay hadda kadib waa in go'aan laga gaaro wakhtiga doorashada u dhacayso warnimayow doorashadaas maa cadaada lagu qabta cadaada taqaana habka wax loo kala tuurteen warnimayow axmed madoobe muxuu ka yidhahday garbaharey waa tii looga bannaan baxaye war dadka garbaharey axmed madoobe way la garrameen waxayna yidhaahdeen aabbihiis caasiyey carruurtiisaa caasisa war alseed sheekh axmed madow waxaan kula talin lahaa waddada waaraha ha mara carruurta baarre waa noqonaysaaye aga ma eega sayid axmed mari waddada waare war horta nimayo anu waxaan la yaabay ciidamada maamul goboleedyada daraawiishta la yidhaahdaa ma kuwii sayidkay ka hareen soo kuwaas maahayn daraawiish war sayidka shabaab buu ahaa haddii daraawiish aad maqasho waxaa u malaynayaa inay yihiin kuwii godona waa shabaab war haan ala sheegaas madii uleesyo unuskogaadana ma eri jarnay buryaane daraawiisha buryaane yaa eri jarni war horaa laydinkugu sheegay say wax u fahamtaan adinka midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniya shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan waryaa ciidanka dharkoodii shabaab ka cesho waaye ma dalkay ka ceshan karaan horaan waxaa loo yidhi dadii duulna ma lisku dayaya dareenkaaga lahaw ciidanka awalaal hal tuuta maxaa loo sii waayey marka laba iyo shan loo siinayo wixii ka batay inay shabaab ka gataan tanaa ku qasbaysa war adar ciidanka somalilan mushahar ku filan bay qaataan war kuwaas waa daraawiish annagana waxaan ka cararayna waa daraawiish warheedhahaya musaf dhuxulow iyo janaal gaafow waxay yidhaahdeen degmada dayniila ciidanka laga fogey xagguu tagayaa ciidanku degmo kasta haddii laga fogeeyo waa yaabe gaaf iyo dhuxul meel la isugu keenay dab waa ka shidan yahay war guddoomiyaha gobolka banaadir iyo xildhibaanada maalin kasta facebook isku haysta yaa isku tagraaray twitterkii ay taageero badan ka soo waayeen war twitterku ma shacabkaa see taageero looga helaa carruur saas ma aha youtubeka dadkaygu salaamooyin war dawladdan i social mediya ma ishal haysada war knn t v youtubeka ma la soo geliyaa war waxa ugu horeeya laga hele waa kalamaan war adeero qarankii somalilan ma aqoonsataan qayladiinnu way dhammaan layde war garanbaho lookadaagdo may aqoonsaniin weydiiduna 60kii baan aqoonsannay warkii 19 aqoonsadaniyow war xilli waa maareey iyo somalilan maxaa kala haysta horta guri weyn ma ka dhisa hargeysa maalin kasta waa u doodaaye war xildhibaan fiqi iyo mucaaradnimo maxaa kala haysta war cabdiraxmaan cabdishakuur weli dibad wareeg miyuu ku jiraa war usuna sidii soomaalilan ha ixtiraafan weydiiyoy horta dalkan loo diiday inuu soo galo maylanka diidi waayo walaysuubi waa ogdaa yaa u diidi karo yaa u diidi maana u diidi waa loo ogada xildhibaan sakariya see ugu qancay waxa socda haddeer biyaanka mayuu rabaa